tani markii la doortay waxaa nala soo gudboonaaday culaysyo siyaasadeed amni dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ka leexiyaan dadka iyo dawladda Soomaaliyeed dhabaha ay doorteen oo ahaa in kiiskan aan looga hadlin meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee adduunka waxaanu door bidnay inaan marnaba aynan qaadan gunnimo dharag leh aanu ka dooranno gobonimo gaajo leh talaabo kasta oo aan qaadnay iyo go'aan kasta oo aan gaarnay waxaa halbeeg u ahaa ilaalinta qabka Soomaaliyeed guushani ma aha mid u soo hoyatay cid gaar ah mana kala laha muxaafid iyo mucaarad mana aha libin ay leeyihiin shakhsiyaad kooban balse waa guul ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan difaaca hantideena qaran ma ahayn wax fudud markii la eego inaan nahay dad iyo dawlad la daala dhacaya duruufo aad iyo aad u adag shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh mudanayaal iyo marweyn waxaan u dhaaranay inaan ilaalino ammaanada aan u qaadnay shacabka Soomaaliyeed damiirkeena marnaba nama siinayo inaan dhaxalka jiilasha soo socda ku bedelano dana shakhsi ah ama dana siyaasadeed ama mid dhaqaale